mas-uuliyiinta hay-adda gargaarka ee Alpha Trust ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoona u sheegay TV-ga Universal in mashaariic kala duwan ay ka fulin doonaan Soomaaliya. Cabdicasiis Ibraahim Axmed ayaa warkan inoo eegaya. mas-uuliyiinta hay-adda Alpha Trust ee ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha hay-adda Alpha Trust ee ka shaqeysa dhanka arrimaha bulshada Daahir Cali Kulmiye iyo Cabdisalaan Muumin ayaa dib ugu soo noqday wadanka. Daahir Cali Kulmiye gudoomiyaha hay-adda Alpha Trust ayaa sheegay in ay ka shaqeyni doonaan arrimaha bulshada, wuxuuna hoosta ka xariiqay in ay bilaabi doonaan wejigii labaad ee caawinta ummadda Soomaaliyeed. waxa kale marnaba la hilmaamay oo mar walba anaga aan dareemayna wadanka dhibki jiro meel walba aan ka aragno. waxaan rabnaa sanadkan last year waxa u nimid dad inaan afur siino howl badan ayaan ka qabanay. this year insha Allah taala sanadkan waxaan rabnaa inaan howl galno. waxaan rabnaa caruur badan ayaan la kulanay last year oo indhala barnaamijka ugu weyn aan rabnaa halka inaan ka fulino. waxaan rabnaa caruurta agoonta ah, dadka danyarta aan awoodin in ay markino ay operation loogu sameeyo, in aan operation u sameeyno wax ugu qalno si ay ayaga u faa'iideystaan markino annagana markino Ilaahay ajir naga siiyo hawsha aan u soo galnay iyo dadka soo dhiibay programkan ku gaana. annaga rag dad baan noo keenay, rag iyo dumar isugu jiro, waan ka mahad celinaynaa. waxaan leenahay Ilaahay ha xafido, waa bilaha ugu qeyreysan wax la sadaqeysto, waa wax muhiim loo baahan yahay. qof walba oo Soomaaliya wax uu ku qasban yahay, qof walba muwaadin ah, waa wax qof walba Ilaahay xaqiisa u raacay maalinta yawm al-qiyaama. intaasi kadib madaxda hay-adda Alpha Trust ee ka shaqeysa dhanka arrimaha bulshada ayaa booqday isla markaana soo kormeeray dadka barakacayaasha ee indhoolayaasha ah ee ku jira kaam ku yaala Sarkuusta ee duleedka magaalada Muqdisho. Cabdisalaan Muumin oo ka mid ah madaxda hay-adda Alpha Trust oo la hadlay dadka barakacayaasha ee indhoolayaasha ah ee ku jira kaamka Sarkuusta ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay indhaha u fiiq doonaan caruurta aragala ee ku jirta kaamkaasi. sanadkii la soo dhaafay 2014kii waxyaalo aad u fara badan ayaa inta ka qabanay. baahida kale oo jirta haddana waxay tahay dadkan aad aragtaan maanta indhaha aanan haysanin, danyarta ah, aanan awoodin sida hooyada ay sheegtay. waxay xitaa isbitaal canugeeda ku geysato isaga dhanba hal sano weli ma gaarin, indhihii jadeeca ayaa ugu dhacday, marka dhaqaale ay ku geystaan xitaa ma haystaano. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, okay, Universal TV, magaalada Muqdisho.